madaxweynaha Kim Jong Un waxa uu soo saaray sharci cusub sharcigaas oo inuu joojiyay dabaaldega maalinta hooyada waxaana uu sheegay inay ku bedelaan inay caabudaan ayeeyadii su'aalahan weydiiyay madaxweynuhu xaq miyuu leeyahay inuu xakameeyo caqiidada waadiniintiisa waata kale haddii ayeeyadii ilaahay tahay isaguna muxuu noqonayaa waa yaab lagu daray waxa uu sheegay haddaanu ku joojin banaabaxa maalinta hooyada in ay ka mashquulayaan daryeelkiisa iyo caafimaadkiisa inta lagu jiro dabaaldega maalintaas dadka xandheerdaya ayaa sheegay in ay Kuuriyada Waqooyi aanay wali galin heerkii ugu xumaa ee noloshooda intuu hogaaminayay Kim Jong Un laakiin ay mustaqbal geli doonaan madaxweynahaasna waa la dili karaa waxa dili kara ama shakhsi ama koox ama qaar qaraabadiisa kamid ah sida carruurtiisa ama walaalihiisa sababta ugu yar ee lagu dili karaana waxay tahay inuu gudan waayo shaqadiisii madaxweynimo sidoo kale waxa ku joojiyay inay u dabaaldegaan dhalashada ayeeyadiis oo dhalatay habeen miilaadi ah taasoo dadkeedu u yaqaanaan hooyadii barkeesneed ayeeyadii oo ku dhimatay xaalada dahsoon sanadku markuu ahaa 1949 wargeyska Indian Times ayaa sheegay inuu dadkiisa ka mamnuucay diinta masiixiga sidoo kale qabriga ayeeyadii waxa soo booqatay sanadkii kumanaan qof oo isla markaa qabrigeeda dul saaro baxyo waxaana lagu tariyay inay tahay hooyooyinkii ugu horeeyay ee dalkaas hogaamiye Kim Jong Un ama madaxweynaha Kim Jong Un waxay dadkiisa u yaqaanaan ninkii wallah sharciyadiisa adag awgeed si aad u hesho muuqaalo badan hadda subscribe dhe oo ka mid noqo kumanaanka qof ee ku xiran channelkayga Xamza Jooqane nagu soo bir caalamkan cusub adoo ka faa'iido doona xogooyin iyo dhacdooyin la yaab leh